kusoo dhawow qaraax tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Cristiano Ronaldo ayaa ka mid ah liiska 3 ciyaaryahan oo ugu dambeyn loo soo xulay inay ku tartamaan abaalmarinta FIFA Best Award. Abaalmarintan oo ah abaalmarin sanadlaha oo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ay bixiso ayaa ku tartami doona Cristiano Ronaldo, Luka Modric iyo Mohamed Salah. warbixintan waxa ay ka hadlaysaa 5 waxyaabood oo aan suuragal ahayn ama muujinaya in Ronaldo uusan ku guuleysan karin abaalmarintan. Juventus ayuu ku biiray Ronaldo sanadkan, xaalad adag ayuu ku bilowday marka la fiiriyo waayihiisa horyaalka Talyaaniga ee Serie A. midda ugu horeysa waxa ay tahay Cristiano Ronaldo iyo guulihiisii gaarka ah ee bandhigyadiisa oo soo idlaadeen. marka la fiiriyo ciyaartii finaalka ah ee Liverpool iyo kooxda Real Madrid, bandhiga gaarka ee kulankaas waxa qaatay Gareth Bale oo ciyaarta saameynteedii bedelay. guud ahaan kulankana waxa loo arkay xidigii ugu fiicnaa inuu ahaa Luka Modric, kaas oo qaatay ciyaaryahanka ugu fiican ee ciyaartaasi. inkastoo Cristiano Ronaldo uu ku jiray garoonka, haddana uu awoodi waayay ciyaaryahankaas inuu gool dhaliyo ama saameyn uu ku yeesho sidii uu sameynayay finaaladii ugu dambeeyay ee Real Madrid ay qaadaysay. talaabada labaad ee Ronaldo uusan abaalmarintan ku mudneen waxaa ka mid ah guuldaradii ka soo gaartay Portugal koobka adduunka ee 2018. inkastoo xulka qaranka dalka Portugal ay gaareen wareegga 16 ee koobka adduunka, haddana ma ahayn wax laga filanayay in Ronaldo heerkaasi lagu qiimeeyo. 32 kooxood oo ka qayb galay koobka adduunka ee 2018 ay ka mid ahaayeen. haddana Portugal waxa ay ku bixeen gacanta Uruguay markii 2 gool iyo gool looga adkaaday. sidaa darteeda midaas dhabarjab xoogan ay ku noqon doontaa Cristiano Ronaldo, sababtoo ah liiska waxaa ku jira Luka Modric oo gaaray finaalka koobka adduunka ee 2018. qodobka saddexaad ee Cristiano Ronaldo ka hor istaagay inuu abaalmarintan ka soo muuqdo waa guulihiisa xiriirka ahaa iyo sidoo kale muran soo dhexgalay ciyaaryahankan dhanka isbedbedelada kooxaha. Ronaldo wuxuu ka soo tagay Real Madrid, wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus, taas oo sababaysa ciyaaryahankan in cadaadis dhanka kala doorashada imaado, sababtoo ah waxaa laga yaabaa codeynta in ciyaartoydii Madrid taageersaneed uu ka waayo. 10 kulan ee ugu horeeyay horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kaliya 2 gool ayuu dhaliyay Cristiano Ronaldo. inkastoo ciyaaryahankan uu 26 gool dhaliyay guud ahaan horyaalka Spain ee La Liga, haddana sidii uu ku bilowday sanadkii la soo dhaafay ma ahan wax qiimeynta ku dari kara xidigan in uu booskaasi helo. tan afraad waa Luka Modric. tartanka waxaa kula jira Luka Modric, kaas oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee koobka adduunka 2018, xidiga ugu wanaagsan ee UEFA. sidoo kale bandhigyo gaar ayuu helay Luka Modric maadaama sanadkan qaab ciyaareed wanaagsan uu soo bandhigay. abaalmarintan waxaa loo maleynayaa mar kale Ronaldo inuu guuldaro kala kulmi doono Luka Modric oo isaga uu ku guuleysan doono. tan shanaad ee ugu dambeysay waxa ay tahay ku bilaabashadiisa kooxdiisii cusub ee Juventus. 88 milyan ay ku soo qaadatay Juventus Cristiano Ronaldo. sidaas darteeda ma sameynin waxyaabihii laga filanayay ciyaaryahankan oo ah in xidigan uu abaalmarinta uu ku guuleysto, sidoo kale guulal waaweyn uu la gaaro kooxdiisa. inkastoo kooxda ka dhisan Allianz Stadium ay badinayso, haddana Ronaldo weli wax gool ma dhalin 3 kulan oo xiriir ah oo kooxdiisa uu saftay. 5 waxyaabood waxaa loo arkaa inay yihiin 5 waxyaabood oo Cristiano Ronaldo ka hor istaagaya inuu ku guuleysto abaalmarinta FIFA Best Award. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share, kadibna inaad subscribe. mahadsanid.